kursiga markii aad fadhiisatay 13 November waa amaana kursiga madaxweyne waa amaano 5 sanadood baa lagu doortay 5 sanadood ee maalin lagu ma dooranin imigana way dhowdahay waxaan rajaynaynaa inaanu noqonin kursigaasi kursi aad dhibaato ka timaada inta ku hadhay maalintii doorashadana 13 November ee soo socota in doorashadana la qabto oo si nabadgeliya doorasho xoolo xalaala in la qabto ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan rajaynaynaa waan ku boorinayaa dimuqraadiyadda kaana qaaday dalka in la wada ilaaliyo oo aan lahayn mucaarid iyo muxaafid laakiin ay tahay waxayna saaran oo mustaqbalka dalka u fiican taasina ay tahay in la wada ilaaliyo oo aan cidna lagu eegin qofka kursi fadhiyo doonaa madaxweynaha cid kasta ahaade iyo ku aan fadhiyinba kuraasidaasi waa la wada leeyahay wadada ka dhaxaysan nima maalin fadhiisan doona madaxweynuhu fadhiyin baa in weligii hadii loo daayo xataa waqti baa uu deynaya cimri marka ayaan la isku xaqxaganin madaxweynaha waxaan ka codsananaa aan ka rajaynaynaa inuu khilaafkaasina soo gabagayo sababtoo ah doorashooyinka waxay leeyihiin wax u asala waxa kamida guddiga doorashooyinka waa guddi madax bannaan markii hore gudoomiye hore iyaga doortay kana imigana iyaga doortay anagu xisaabta mucaaradka hadaan nahay kii horena waan taageersanay waan ayeysanayn kan dacwada doortayna waan ayeysanahay waxaan rajaynaynaa in khilaaf aanu ka imanin guddida loo xil saaray ee la sheegay madaxweynuhu doorayna waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu si ka duwan oo haduu xal khilaaf jiro xataa si ka duwan in loo xaliyaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa oo imanaya beritoole hadii la yiraahdo musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa gobolka imanaya awdal waxaan rajaynayaa dadweynaha ku nool gobolka awdal waxaan rajaynaynaa inay u diyaar garoobaan oo ay soo dhaweeyaan waxa meesha taala waxa laga hadlaa nabadgelyada haday imanayaan oo dadka soo dhaweynayaan waxa weeyaan macnaheedu ma aha nabadgelyada inay dadka iyo taageerayaasha axsaabta mucaaridku xil baa saaran xil baa wada saaran ka dawladda saaran ka cid walba saaran ka kulmiye saaran ayaa cid walba saaran nabadgelyada cidnaba lama baryayo taageerayaashu ayagoo nabadgelyada iyo ka shaqeynaya oo aan u baahnayn inay bilayska iyo ciidamada u xil saaran inay waxba aan uga baahnayn iyagoo nabadgelyo ilaalinaya waxaan rajaynaynaa inay soo dhaweyntaasi u diyaar garoobaan si fiican u soo dhaweeyaan si nabadgelyo u soo dhaweeyaan ilaahayna waxaan rajaynaynaa soo dhaweyntoodaas inay noqoto si fiican oo nabadgelyo ah ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay dalkeena guul iyo nimco ilaahay maanta Soomaaliland waa dalalka adduunka ugu fiican waxay ugu fiican tahay waxa nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxay nagu waajiba lagama fikiro shalay maxaa yimiday maxaa la qabtay maanta way socotaa bari ay marasa dhalinyarada wax walba iyo dadka ku nool mustaqbal bay leeyihiin rabaan aan ka fikirno bari toole cid ka soo nahayba aan bari ka fikirno iyo maxaan qabsanaa aan ka fikirno ilaahay waxaan ka rajaynayaa wax fiican inoo waafajiyo 18 Mayna nabadgeliyo meel kasta oo joogno ummadda shacabka Soomaaliland inuu ilaahayna u gaarsiiyo waxaan rajaynayaa in si fiican aan soo dhaweyno nabadgelyadana aan ilaashano innaga ku nool